wuxuu ahaa xilli uu jooga degan yahay. waxaan isticmaalaya aaladda Facebooka. weliba waxaan ahaa markaa ruuxaad iskaga caajisaya dhanka sheekada ama hasaawaha. waxaan daawanayay boostiyada ay dadka soo dhigayaan. mar qura waxay indhahayga qabteen qoraal iyo weliba sawir aad u qurux badan oo iga soo dhacay dhanka Messenger-ka. markaan eegay sawirka, waxay ahayd gabar qurux badan, weliba aad cajiib u ah. muuqaalka iyo soo jiidashada sawirka u saarnaa brofaylka. kadib markaan ku dhuftay brofaylkeeda, waxaan u sii guda galay hadal ay ii soo qortay gabadha. hadalkeeduna wuxuu keliya ahaa mid kooban oo lagu dalbanayay inaan u diro waxyaabaha status ka soo saartay. kadib waxaan u diray muuqaalkii. waxaan u sii raaciyey waxaad tahay qof qurux badan, weliba soo jiidasho leh. ilaahay ha ku dhowray. waxay igu jawaabtay waa mahadsan tahay, keliya iyadoo aanan ii soo raacin hadal kale. anigoo marka aanan qoraal kale u qorin, haddana waxay niyaddeeda jeclayd inaan la hadlo ama aan la sheekaysto. dhowr jeer ayaan isku dayey inaan qoraal u qoro, balse ma aysan dhicin. waxaan noqday ruux fiiriyey brofaylkeeda, gudaha u gala, sawiradeeda eega, xitaa boostyada ay soo dhigtay indhaha mariya. haddana waxaa igu sii siyaaday xiisihii gabadha u qabay. waxaa noqday qof danaynaya boostiyadeeda, weliba aad ay u soo jiidatay sawirada ku jira brofaylkeeda oo aad u qurux badnaa. gabadhu waxay ahayd gabar soo jiidasho cajiiba leh, weliba aniga ahaan si dhaba ugu qaadmay dhankeeda. jacayl ma jiray, oo jacayl markaa ima hayee waa xiiso un keliya. markaan si fiican u sii eegay sawirada, ayaa marba mar u sii qaadayo xiise kale, ayaan markii dambe waxaan isku dayay inaan kala hadla aaladda Messenger-ka. haddana way ii saamixi weysay. waxaan isku dayey inaan gabadhi la sii sheekaysto. haddana waxaan jeclaystay sheekadeedu inay lahaato macno albaabka lagu gali karo. waxaan isku dayey inaan raadiyo qaabka keliya ee aan kula sheekaysan kara gabadha. ugu dambayn waxaa ii fududaaday staatuskeeda muuqaal qurux badan ee ayada soo duubatay oo ay soo saaratay inaan kala hadlo. waxaan u qoray waa qurux badan tahay, weliba quruxdaadu waa mid cajiib ah. waxay igu soo koobtay waa mahadsan tahay walaal. aniguna waxaan ahaa ruux raba sheekada hadalka gabadha. mar kale waxaan u qoray qofkii ku hela baa nasiib leh, keliya iyaduna waxay igu soo koobtay taankiis. laakiin xaaladdu intaa kuma ekeen, oo waxaan ahaa ruux xiiso u hayee. waxaan isku sii dayey inaan la sii sheekaystay gabadhii, weliba sheeko cajiib ah. mar kale baan haddana u qoray abaay, haddii aan isbarano siday u aragtaa adiga? allah, xanuun badanaa xilliyada qaar markii aad qof danaynaysid qofkaasina waa adiga ku danaynaynin. qoraalkii ahaa ma isbaran karnaa abaayo? jawaabtiisu waxay qaadatay nus saac. aniguna waxaan ahaa 30 daqiiqo nin daqiiqad walba u tiriya 1 2 3 ilaa iyo laga gaaray waqtigii ay qoraalkii soo qortay. markaa kadib waxaan qaaday farxad iyo weliba dareen cajiib ah. waxay igu soo jawaabtay haa, waan isbaran karnaa walaal, isu dhowow. waan isbaranay. waxaan qaatay lambarkeeda, ayana waxay qaadatay lambarkayga. waxaan aaday dhanka WhatsApp-ka anigoo u qoray welcome waa Cabdiraxmaane. kadib waan ka sheekaysanay, waqtina waan qaadanay. weliba waqti dheer muu ahayne, keliya wuxuu ahaa sheeko kooban oo ku kooban waa mahadsan tahay, barashadeena waan kaaga mahad celinaa, weliba waan ku faraxsanaa, anigana sidoo kale oo keliya. laakiin waqtigaa waxaan aaminay inaan ka yara dhowahay sidii hore, maadaama hadda aan gabadha bartay, weliba barashadeeda aan aad ugu dhowahay. mar kale waxaan isku sii dayay haddana inaan la sii sheekaysto. nasiib wanaag waxay ii saamaxday sheekadeedii, oo waxaan noqonay laba ruux oo isbarta. laakiin waxaa cajiib ahayd markii barashadeeda dhaaftay halkii ahaa xaaladda ka waranaya say tahay, oo aan u gudbay inaan dhaho walaal, waxaan u baahanahay inaan adiga xiriir kula sameeyo. laakiin ma ahayn waxaan filayay dhacdadii iga soo laabatay gabadha. waayo marka waxaan ahaa ruux bartay xaaladda ka waran, waa fiicanahay, see tahay, waa nabad, maxaa haysaa, waxba in sheekada loo mixeeyo. markaan idhi waxaan rabaa inaan xiriir kula sameeyo, waxaan arkay isbeddel weliba xooggan. laakiin anigu mar walba waxaan isku dhiirigelinayay nasiibkaaga waa cajiib, wixii kuu nasiibahana waad heli doontaa.
markii aan weydiiyey xiriirka waxay ii soo qortay qosol wayna iga aamustay. hadal wuu iga soo fiqi waayey waayo waxaan ahaa qof dalbaday xiriir haddana qosol loo soo qoray. laakiin nus saac kadib waxaan arkay qoraal la ii soo qorayo waayo waxaan ahaa qof aaba ka bixin ciwaankee. markaan arkay teebinkeeda ama qoraal qoriddeeda aad baan u farxay. waxay ii soo qortay walaal cabdiraxmaan aniga